Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtayda waan idin salaamaya maalin wanaagsan magacaygu waa Nasriin qof kasta xilliga uu wanaagsan kusoo dhawaada channelkayga Nasriin Happy Channel 1 maanta asxaab waxaan rabaa inaan idila waraago faroog yar hadda subax weeyaan hadda waxaan isku diyaarinay kidagaadka markaan waan fadhiistay oo markaas sii baxay bahayd asoo aan fadhiga ugu bilaabay videoga saacadu waa 8 subaxnimo iyo ilaa 40 meelahaas waxaan caruurta geeyay kindergartenka iyo iskoolada hadda aniga ayaa iskool aadaya waxaan usoo lugeeyaa iskuulka halka waxaa igu jira shitadii aan bugaagta ku qaadanayay waxaa la yidhi xaraga xanuun male shindada la xambaarta bal maxaan u qaada way taas ayaa maad aragtay fudud waxaa meesha igu jira bugaag aad iyo aad u badan way culusta garabku way go-aa subaxii markaa iskuulka soo lugaynayo haddana ma jecli shindada la xambaarto waxaa rabaa ina xaragooda waxaa soo maray dukaanka waxaa kasoo iibsaday yacni roodhi subaxii ma awoodo inaan quraacdo maadaama caruur badan aan haysto waqtiga igu yaraada inaan quraacdo soo inta badan waxaa soo maraa dukaanka waxaan kasoo iibsadaa roodhidaas oo cuno intaan jidka kusii socdo kusii quraacdo iyo sidoo kale marka aan maadaragtay xilliga yani xilliga boosaha lagu jiro wixii aan cuni lahaana sometimes waan soo iibsadaa marka qaarna gurigan ka qaataa kafeega ayaan guriga ka qaataa roodhidana waan soo iibsadaa waxaan taagnaa meeshaan yariistaaga waxay ahayd shaaradan kasoo tallaabay hadda iskuulka wadhow soo arki maysaa shidada waan sidii karlaa marba dhinac baan u wareejinayaa meesha waxaa la dhahdaa ablaaya meydkeeda ha sidato xataa bacdii aan cuntada ku cuno yani meel maadaama meel qashka lagu daaqadiyo aanay noo dhaweyn gacanta ayaan ku sitaa ilaa laga gaaro meel maadartaa qasha ku tura saxbi waxaan weydiinayaa yaa ila mida aniga subaxii markaan maadaragta iskuulka kusii socdo waxaa igu dhacda yani subxaanallah aada iyo aad baa maad aragtay waxa ay hayso hurdo waxaa rabaa inaan isku sii hurdale xilliga qabowga bal dadkay la midkaa laakiin danta aanay seexinin ha ay soo sheegaan jawigu waa macaan roob baa da-da-aya dhulku waa madow yani qabow weeyaan marka busta hoosta laga galo wax ka macaan malaha laakiin waxay kaaga taala dee dan baan ku fadhiisanin soo maaha iskuulka in badan baan usoo lugayaa maadaama maad aragtay meel baska yani wuxuu ku yaalaa meeshan aniga wax ka dhigta hospitalka diyaariya iyo meesha carurteyda aan geeyaa oo ay kala qaloocaan soo bas maad aragtay ama tareen ama wax yani toos u tagaya ma laha saa daraadeeda lug baan ku imaada waxaan soo lugayaa ilaa 15 daqiiqo meelahaas ugu yaraan ilaa meesha wax ku dhiganaya ilaa meesha carurteyda geeyo 15 daqiiqaan usoo lugeeyaa maaski ayaan xidhanahay meeshaas meeshaan wax ku dhigto waxa ku yaala iskoolka waxa ku yaala kindergarten sidoo kale waxa ku yaala yuganamtiga meesha yuganamtiga aniga wax ku dhigto soo marka saxaabay shindadii wada rataan waan maadaragtay waan la cararayaa maanta yara habsan baan ahay waxaan isku dayayaa inaan dheereeyo 9 buura inaan meesha joogay laakiin waxaa la marayaa 9 ilaa 9 daqiiqo saxaabay hadda waxaan kasoo baxay iskuulka waxaan rabaa maanta dukaanka inaan aado maadaama isniinta maadaragtay wax yani fest la carnaval fest baa lagu dhigaa jarmalka soo markaa gobolada kala duwan gobolkeena isniinta magaaladeena isniinta caruurta yarba waxaa loo xiraa dhar iyo wax noocaas ah soo markaa dharkeena caruurta yar u xidhlaaban soo iibsanayaa maadaama dhulka ku noolahay maadaragtay inkastoo fiican yani waxyaabaha iyagu xusaan loo dabaaldego laakiin tani waxba maadaragtay caruurta lama baraayo keliya caruurta dharba iska xidhanayaan waa isla quraacanayaan waa loo sheekeynayaa soo saa daraadeed waxaan siibinayaa caruurteyda dharka ay ku xidhan lahay maadaama sanadka hore dharka ku tegayna yaryar yihiin haddaan dharkaa u xidhin maalinta isniinta waxay noqon doonaa way ka duwanaanayaan dadka saa daraadeed baan ugu iibinaya cadceeday hayse macaanka lagama sheekeyn karo laakiin waa qabow oo weli xilli qabow aan ku jirna shidadii cuslan waa iska soo dhigay adarta alle waa iska soo dhigay shidadii cusbayd waxaan sitaa shindad yaroo fudud garabkii waan iska soo nafsiyey walaahi dhan shidadaas in la suuqa lamaan tageen anaaba iska yaaba maanta sonashine cadaan qurux arayaayayayay markaas xaabay hadda waxaan taaganahay meesha baska waxaan sii socdaa dukaanka maad aragtay maadaama keliyahay qof yacni kamaradiga duuba ma helaayo saa daraadeed waa inaan anigu isku hayaa wax badan baa tusila laakiin markaad keli tahay maadaama keligii aan soo baxayo way adag tahay soo insha allah mar kale ayaan daawashin doonaa magaaladeedii siday u eg tahay maasha allah tabaaraka allah laakiin walahi jawiga maanta iska cadceedsale samarkii baa noo soo uraya waad aragtaan dhulka roob baa ka da-ay yani dhulka maxaa ka qurux badan markuu roobda oo cadceedi qabato jawiga ifkaan uga jecelay yani hadda waxaan soo galay dukaan oo aan dharka ka iibinayo sidoo kale waxaa ila socota gabadhayda rida cafiifa yar cafiifa maanta xilli horaa soo qaaday sababta waxay tahay in dumarkii oo kidagaada ka cafiifahayay
baa qaar xanuunsanaya saa daraadeeda waxaad maanta xilli hore inaan soo qaada maadaama maalintii noogu dambeysay isbuuca. Kabahaas ayaan soo iibiyey, qayga yar u soo iibiyey, maadaama xilli qabow lagu jiro, kaba yacni guriga lagu joogo ay degdeg ku joogayaan. Cafiifan dhinac baan ka shiidaya, dhinacna waan ka adeeganayaa. maasha Allah tabaarakallah, yacni dee alxamdulilah rabbilcaalamiin. Asxaabi waxaad ku codsanaya channelkina subscribe iyo saartaan, like iyo share. Gabdho idinkuna haddii yacni waxaad jeceshiin inaad la soo wadaago waxyaabo badan baa soo socda, yani qisooyin badan baa insha Allah idila wadaagi doona, la ii soo dhiibtay biidhnillah baari. Maalin ayaan u fadhiisanayaa, haddii ilaahay mar ayaan u fadhiisanayaa. Waa YouTube laftigiis waa iska hawl, asaga laftigiis yacni wuxuu u baahan yahay waqti in la geliyo. aad iyo aad maad aragtay ugu baahan yahay waqti la geliyo. Soo asxaabay hadda waxaan soo qaaday carruurtayda aniga gabadhaydu markaas soo baxno saasaan isku salaana. Assalaamu calaykum.